marka hayslays noloshayda duba ku qoray daaya xasadkayga ana sharaxay badaaya soo daaya madareereya tiktak kama daawamea. Ni sherehe kubwa sana, hata siwezi kusema mengi. Thank you very important. hadday ku diiday ka soco, hadday ku yeeshay ku soco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد هنت وين سلام دمان مال استدرك شفتوا وانا بكلام كسروا يشارك هذا التعصب صار سبسكرايب وسبسكرايب هنا عقمه إذا هي نو ديو دبنا ديو دبنا عيو ديو ديو قال لا سبنا الله يعبد والله يعبد الله يعبد إيه والله يعبد ماجد بيعبد waxaan arkay sabanka la joogay naag oo yahay naagtina ay leedahay kuma rabo ninkan aan haystaa taas wala yaab mal walaal waa caadi laakiin ninkan la yaabana ana wuxuu ku leeyahay naagta waan jeclahay kadibna ninkan la jeclaato anigana waa nacday buu ku leeyahay adeer naagta maadiga dhalay maadiga kansaday maadigay ku joogtaa adeer naagta nolol bay leedahay jacayl bay leedahay maskax bay leedahay garaad bay leedahay dad bay la noqotay garad meeshay doontay ka dhici kartaa waxay rabtay samayn kartaa adiga dunyada laguma keenin ma garad wixii loo keenay baa loo keenay marka hayslaaysiin hadday ku diiday ka soco hadday ku yeeshay ku soco ka hadlo waxyaabo badan oo horta jira oo aan la yaabay anigu hadda aan la yaabay oo aan la yaabo markaan sii fiiriyaan dadka qaarna maxaa ka khaldan dadka qaar maxaa ka khaldanaya oo macnaha marka hadda aad sii fiirisid macnaha qof macnaha aqli leh qof macnaha xishoonaya qof damiir leh waxyaabana qofkii una afkiisa ka dhigi karin oo la yaab leh oo hadda cusubde ma cusbe adu baryaan oo dhan bay socotaa waxaan la yaabo bil matalan ba hadda macnaha waxa la iska leeyahay macnaha qof caadi ah nin normal adiga hadda ninkayga halka aad ka daawanaysid baa waxaa la iska leeyahay hebel maaragt waa khaniis waa laga roone waxba ma taro oo goormaad ogaad oo xaggeed ku ogaad oo maseed ku dareeda maxaad ku aragta macnihi tan kalena waxaa jirta macnaha su-aashaas macnaha af-soomaali xumadaas waxa keenay waxyaabaha ka mid ah in la arko macnaha dad aad iyo aad u dhaqan xun aad iyo aad u dhaqan xun oo ay ka mid yihiin waxaad arkaysaa bilmatalanba dad u dhaqmaya sidii laga roonayaashii oo kale oo ka sheekaynaya macnaha Soomaali xumaadu waxbaa la dubaynayaa iyo hebel waa khaniis iyo khaniisyaashu life la soo galaa iyo waxyaabo awood magaraysa qofka bini'aadanka aan maskaxdiisa gelin oo dhaqan xumo aan shaxi iyo bini'aadanimadii iyo edabtii iyo wixii kaba tilaabto ka tagtayba ayaa jira kale aan la yaabay ayadan waxay tahay macnaha laba qof baa macnaha life isla soo galaysa laba qof baa life isla soo galaysa kadibna labada qof saad ogtiin ba TikTok waa macnaha life baa la soo galaa waa la xujeeyaa xujada waa iska caadi qofkan waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay macnaha qofkan xujeey kadibna waxaa laga yaabaa inuu macnaha lagu duubo hadhow meelaha lagu mariye kadibna waxaa laga yaabaa macnaha waxaan entertainment ka dhigo dad baa macnaha laga yaabaa in ku qoslaan ka dhigtaan macnaha entertainment oo dad baa laga yaabaa inay caadi u tahayba dadka asagoo kale macnaha dadka qofka afkiisa waxyaabo xun ka dhahayo oo kale ayaa jira oo macnaha daawanayo entertainment ay u noqonaysa oo ka helaya wixii marka nin iyo naag ayaa macnaha laba kaba soo qaad ayaa live soo galaya markaas waxay ku leeyihiin bikram yaa tahay baa gabadh lagu leeyahay macnaha live dhexdeeda macnaha live ka waxa laga yaabaa 1200 qof inaad daawanayso oo Soomaali ah baa laga yaabaa oo waxyaabaha aan la yaabo oo macnaha maskaxdeeda geli waayay macnaha qofka bini'aadanka dadka qaar waxyaabaha afka dhahaya dadka qaar waxyaabaha ay afkooda ka dhahayaan waxyaaba maskaxda geli kara maaha waxyaaba macnaha oo loo dul qaadan kara maaha waxyaaba doqonnimo oo aqal xumo oo dhaqan xumo oo macnaha qalad weeyaan tan kalena waxaan jeclaan lahaa inaan macnaha dadka noocaas horta bal magac dhabo qaarkood inaan magac dhabo dadka badana waxyaabaha dhaqan xumada ah ee af-Soomaali xumada ah ka sheekeeya ee su'aalahan oo dhan waxyaabahan oo dhan keenay inay imaadaan macnaha social media iyo bulshada dhexdooda
inay su'aalaha noocan oo kale ah dadka dhex imaadaan waxyaabihii keenay iyo dadka dhaqanka laga arkay ayaa horta wax ka sheegaynaa sida thumbnailka ka soo aragteen waa horta dadka xagga aad soo aragteen waxaa ka mid ah Babaji baa ka mid ah CK baa ka mid ah iska badaada wixii khadka ka baxay ee cilmi iyo waxaas kuwaas another level bay ahaayeen iska dhaaf waa xagga naga dhig laakiin dadka hadda weli loo yaaban yahay oo macnahooda aan la fahansanayn waxaa ka mid ah Babaji baa ka mid ah CK baa ka mid ah CK asagu wuxuu rabo iska hadlaa horta dadkuna waxay dhawaan qalbi wanaagsan ta kalena markuu hadlayo wuxuu doono afka dhahaa anaa wuxuu doono iska dhahaa qofka bini'aadamkaana ma fiicna haddii uu bulshada magac ku leeyahay haddii uu is arkay bulshada inay yara maartay ay daawashadiisa badantoo dadku ay jecel yihiin oo dadku daawadaan oo dadku xiran yihiin haddii uu isu arka asagu qof wanaagsan haddana uu kaga hadlayo macnaha afkii wax doono uu kaga hadlayo automatically waxaad ogaanaysaa macnaha in lagu qiimeyn doono afkaaga waxa adiga afkaaga ka soo baxa in lagu qiimeyn doono ugu dambeyn oo hadhow markii meelaha lagu arko qofku wuxuu ka aaminayaa macnaha wixii uu kugu arkay adiga wixii adiga uu kugu arkay matalan ba hadda adiga waxaa laga yaabaa inaad waxyaabo xun ka sheekaysay sida waxyaabaha laga roonaha iyo waxyaabaha edabtiya anshaxa daran ee dadka qaar ay ka hadlaan ayaad ka sheekaysay intaad soo gashay social media ayaad ka soo gashay waxaad bixinaysaa cashiro waxa laga yaabaa dad inay ku daawanayaan dad kaana bari ka maalin intay social media soo galaan istaan ayaguna wixii kale maana ka waran oo ka sheekay waxa laga yaabaa dadka inay kugu daydaan dambigaas iyo dhibaatadaas qofba qofka kale ka dhaxlayo ayaa laga yaabaa inaad adigu role model u noqotay oo qofkaas adigu aad ku sababtay oo laga yaabaa inuu wadadaadii kale uu rabo inuu qaado qofkaas waa duni aakhir samaano lama daayo warkeeda intaasaan rabaa inaan kusoo koobo tan iyo tan ku mid fiidiyowga lamid ah waxaad kaga tagaystaa iyo ammaanaan la subscribe-na ii saar YouTube-kan hadda aad daawanaysid aad iyo aad baad ugu mahadsantahay boqolkiiba boqol. Peace and love.